ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أيام ككلمة ضلبين أولا waxaan ka warrami doonaa haddii allah yidhaahdo saddex masalo. masalada ugu horreyda waxa weeyaan aliimaanu billaah, taas middaa la xiriirta oo ayada qayb ka mid a yacni noqonaysa ama masalada labaad ah waxa weeyaan walkufru bidaaquud, daaquudka oo lagu kufriyo. arrinta saddexaad waxa weeyaan dadka mushrikiinta ah wilaayada la siinayo sida ay tahay arrinteedu. waa mushrikiinta xiriirka iyo muwaalaadka lala leeyahay, ayadoo laga yaabo masalada ugu dambayda inay aada ugu dheeraado kolka haddii ilaah yidhahdo inta kale aan soo gaabiyo. marka waa saddex masalo oo nolosha maanta jirta aada u khusayda. qofkii yani doonaya inuu tacliiqiyo ha dhagaysto haddii rabbi qadaro subxaanahu wa tacaala. dadka ayagu xumaanta jecel oo masaa'ilka noocaana in laga hadlo aan jeclayna ha dhagaysteen si aysan aan loogu soo sheekayn oo waxay sheegi lahaayeen ay u ogaadaan, ha iska maqleen. ilaa waxaa laga yaabaa inay yidhahdeen maxaa laga sheega meesha, inta derbiyada warwareegaan. iska dhagaysta si war aad sheegtaan aadnan u weynin, waayo waa masaa'il aada u dhib badan oo adinka idin khuseeya, nolosha maantana aada u taabanaya. waxaan intaa uga horaynayaa hal masalo oo aanan iyada aada uga warramayn. masaladaasu waxa weeyaan waayahan dambe waxaa jirta marka la aadayo dalalka carabta qaarkood, khaasatan meelaha lagu magacaabay sacuudiga iyo waxa lamidka ah, dumarku keligood ma galaan iyadoo nimanka halkaa ka taliya aysan diin ula jeedin oo naagtay ayagu rabaan ay keligood dhoofsadaan. sida kuwa booyaaska u shaqeeya oo kale, xaramka ilaahay gaala hadday rabaan way geeyaan, diin ulama jeedaan. naagtu waa inay maxram wadataa, maxramka walaalkeed lama rabo, qof kale lama rabo nin. qadiyadaas ayadaa markii si looga gudbo waayaha waxaa bilowday dumarna niman qabaan oo jooga meelaha khaliijka lagu sheegayo oo ka shaqeeya in niman halkaan inta ku mehersadaan kaxeeyaan. waa guursanayaan, warqadaa loo samaynaya, qaali baa la tegayaa, 29 beenood baa la marin. masalada ayadaa diintu ma qabto, ilaahayna ka xishooda subxaana wa tacaala. hadda ninkiiyo naagta inay isfuraan baa laga baqay. awalba waa isfurayeen ma isfurtaan, ma hadda furin yaryahay ayadoon yani la kala xirin baa saacad walba dalaa gacanta lagu hayaa. midda kale qofku waa inuu ilahay ka cabsado. waxaa laga cabanaya markii hore war habluhu yaysan keligood safrin, inay keligood safraan baa la qaatay, taasaa khayr badneed. marxalad kaloo dhib badan baa timid, waa meeqa beenood, imise waxyaalood baa isa la gelaya. ilahay ayaan lagu been abuuranin. nimanka yani safaahooyinka waa safaaradaha waxaa la yidhaahdo dabaallada ah, ma yaqaanin diin iyo qawaaniin midnaba. waxaa laga yaabaa haweenta haddii uu kaxaynayo walaalkeed la dhashay inay u diidaan fiisada oo ay yidhahdeen ninkii ku qabe waa inuu noqdaa. hadday qadiyadaas oo kala timaado, hadduu warqad u sameeyo beenbeen oo nooca ayaga u geeyo isagoo maxramkeedii ah, dariiq weeyaan. laakiin siyaalaha kale ilaahay ha laga xishoodo subxaana wa tacaala. yaan ilaahay agtiisa dhibaato weyn la geysanin. dadka islaamka oo rabbi ka cabsada. aan u soo gudbo marka masaa'ilkaan doonaya inaan ka warramo. allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa munazalka wuxuu ku yidhi walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu daaguut. waxa ugu horeeya ee allah uu bani aadamka ku waajibiyey axad walbana gaar looga doonayaa waa laba masalo. waxay tahay midda ugu horaysa aliimaanu billah, qofku waa inuu alla rumeeyo. waxaa ku xiga waa maxay alkufru bidaaquud, waa inuu daaquudka ku gaaloobo. ilaa qofka taa laga helaya diinu ma aysan gelin, iimaanna ma lahan, siduu rabbi caddaynayo subxaana wa tacaala. rasuul kastee ummad loo diro waxaa lagu odhanayay rabbi caabuda ku dheh dadka, daaquudka iyo qurunkana ka durga, saasaa ku dheh la odhanayay. marka iimaanka alla la rumeeyaa waxa weeye in kelimada tawxiidka oo kufriga iyo islaamka kala saarta lagu dhawaaqo, carabka looga dhawaaqo, qalbiga laga rumeeyo, xibnaha looga dhaqmo. waayo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbih.
أحد في ربي يسديبه مركو يسديبنا عمل كيسا وناجية اللي أكتيس أجري وين أيو كليه ما عبسنا يوم نطير أيونا يوم يسديبه الرنطة وإيمان حقيقي أو حق إن لغاهلو ذلك إيمانك لغاهلو ودك ولا أيري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ذلك الله إيا آيات كيسا إيا النبي قرمي أو عمل صالحة أو هكذا ليني ومخلوق إلهي كوة أبو خير كبضان له أو أبو وناك كبضان له هذا أحد والبو إيمان دون إيمانك زعم معهن وحا أبو دونتنا معهن ووح قلبك كجرة وعربك الله قد بواقه وحمنها الله قد بقمه ونرشاد ودم بدلية فآمنوا بالله والرسول والنور الذي أنزلنا وحد رميسان الله إيا الرسول كيسا إيا قرآن كالذي سود الجيي noloshiina ku dhaqa dhaqankiina iyo caqiidadiina iyo akhlaaqdiina iyo aadaabtiina asaga ka dhigta haddaadan qur'aanku sidau yahay ugu dhaqmin iimaan ma lihid daaquudna kuma aadan kufrin axadka aan daaquudka ku kufrinna diin ma haysto marka daaquudka la sheegayaa wuu fara badan yahay oo lagu leeyahay ku gaalooba waxaase ugu waaweyn oo odayaal u aha shan ayaa odayaal daaquudka u ah oo ugu waaweyn daaquudkana waxaa la yidhaha wax kasta oo laga amar qaato oo la qadariyo oo la weyneeyo oo rabbi ka sukeeya in lagu kufriyo taasaa la yidhaha daaquudka marka lagu leeyahy waa lagu gaaloobay waxa ugu horeeya waa shaydaan marka alla shaydaanka ka hadlaya waxau yidhi yaa alam axad ilaykum ya bani aadam anlaa tacbudu shaydaana inahu lakum caduwun mubiin war miyaanan idiin dardaarmin oonan idinkula ballamin oonan idiin sheegin oonan idin amrin bani aadamow inaanan shaydaan caabudin oonan ka amar qaadan oo ogaataa inuu cadow cad idin yahay oo naarta idinkugu yeedhayo wa an icbuduunii haadaa siraada mustaqiim oo alla daba dhigay rabbi keliya oo la caabudo oo wax alla waxaad samaynaysa qur'aanka iyo xadiidka saxiixa laga qaato ayaa dariiqa toosan ah noloshaada qaarkeed haddaad diinta ka qaadatid qaarna aad dimuquraadiyada iyo gaalada ka qaadatid waxaad caabudaa weli waa shaydaane alla ma ahan waxau doonayaa qofka maanta jooga inuu shaydaanka la tashado salaadana uu masaajidka ku dukado suuragal ma ahan daaquudkaa shaydaanka waa midkau alla yidhi ina ashaydaana lakum caduwun faاttakiduuhu caduwa rabbina ou yidhi laamla'ana jahannama minka wa minman tabicak adiga iyo waxa ku raac oo dhan jahannaba idinka buuxinaya rabbi waa u ballan qaaday inuu jahannaba ka buuxiyo shaydaan iyo waxa raaca wax alla waxa ka amar qaata oo labiska shaydaanku labisa yidhaa labista oo cuntada shaydaanku cun yidhaa cuna oo sida shaydaanku u dhaqan yidhaa u dhaqma jahannaba laga buuxinayaa rabulciisa caddeeyey dadka maanta jira agsarkoodu waa caamiliin lishaydaan wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum xaaraanta iyo bagsiga oo dhan shaydaankaa u qurxiyey fasadahum can isabiili fahum laa yahtaduun ribadu waa xalaal shaydaankaa ku yidhi yacni qabyaaladu waa xalaal shaydaankaa ku yidhi muslimiinta lama jeclaado shaydaankaa ku yidhi gaalada mixiin weydiista isu dhiiba shaydaanka ayaa ku yidhi gaaladu cadaaladay bay taqaan ilaahda shaydaankaa ku yidhi dadku shaydaan bay caabudeen siday u badnaadeen marka waxa halkaa hoos yaalla oo shaydaanka hoos yaalla oo daaquudka ah waa hawadu waa daaquud ay dadku caabudaan afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ma aragtay dadka hawadooda ilaaha ka dhigtay oo wax alla waxa ku soo dhaca yeelaya wax alla waxa ayagoo ku soo dhacaya yeelayaan ka fiirso waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin yaa ka lumid badan waxa maskaxdiisu ugu sheekaydo qofka dhaqan iyo diin ka dhifay hanuun xagga rabbi ka yimid aan haysanin dadka maskaxdooda la tashada oona qur'aanka iyo xadiidka la tashan ilaahay ma hanuuniyo khayrna ma lahan dadka lagu sheegana kuwaa weeye daaquudku markuu kaas yahay oo shaydaan sidaa noo galay midka dambe oo daba yaala waayo waa xaakimka jaa'irka oo xagga ka tegey oo diinta islaamka xagga soo dhigtay waxau allah yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qabli yuriiduuna an yataxaakamuu ila adaaquut firso yuriiduuna an yataxaakamuu ila adaaquut waqad umiruu bihi an yakfuruu bihi wayuriidu shaydaan
أن يضلهم ضلالا بعيدا. هي وعلى أمر إلي كجالوبان وهو النوغة شاكية إلي جيران دليل الله إيا آياتي إيا الرسول كأيان روميني وعن روميني الرسول شي هوري الله صادري وحي لغو سودجيي داغوت كوحكم تمية داغوت كوحكم تمية ومدى ما أنت أن كل حنولناهي أما أنه كمدناهي إيا دك إسلام كيسكو شيغي أوردان إلا من رحم ربك يريدون أن يتحاكموا إلى الداغوت داغوت كي إلي يحكم تمام بيدونيان قرت قبيلكو وداغوت الله حكم تمام إنما الدونة لسما الدونة إيا وحل لو يقان إسلاوية وقاسية كل قد دواقيد وي إلهي أقون وكل قد دواقيد وي هذا يفضيان هذا يدونه عرودين إن دواقيد إيهين أما دواقيدين هذا جوكتان وحدين كو حدينيا رأيي إن يددكو كسعلان دقالما وي دقالمان وحسودع وي سودعان marka wax la kala qaadayo adin kala idin keena ayad quraan soo madaliisataan xarafna ma taqaanaan maxaa la idinku raacsanay ummadda ku kala saartaan hay waxa la idinku raacsanay ummadda ku kala saartaan maxay hay wada waaqid an ilaahay shaqa kulayn diintiisa yuriiduuna an yataxakamu ila daaquut axad ka barlamaanka qayb gala iyo qof kasta oo soo doorta axad gobol laga doorto ama madaxweynena halkaasoo ku jira yuriiduuna an yataxakamu ila daaquut si aada how caroodeen jawaasiistu maanta waa inaad ogaataan nin kasta oo doorasho isu diyaarinaya qoladaasoo ku jira yuriiduuna an yataxakamu ila daaquut waxay doonayaan inay u xukuntamaan daaquutka diinta waan aaminsannahay culumaanu nahay muslimiin baanu nahay tawxiid baan galanoo muwaxidiin baan nahay muwaxid dooranaya goormaa la arkay nin gaal ah goormaa la arkay muwaxid u sacyinayo inuu barlamaan kursi ka helo haye waa muwaxid أي واحد الله فريسانا يا شركة متغان إيا دادك وحلفاء لليهي واحد أو كو ورميه يو بابئين يا من كلا أو مسلمين ولا بوشيغيو أيو عايا يا بابئين يا دادك كدير يا أسابون السارو يسوقان يا إن الله إنت الله عكا دورة شدوكو بحيرا إيا إن الله إنت كغيب قسا واحد لديبيو ومسلمين إلهي كفرة دواغيد وحقن تنتي لنا حقو بجاريسين نيكي كعرون يا كعرون أنا عرب العكس ما قالوا ورقة اللو قرين مايو وأنا لك قرين مايو نين أنك فقهين الله إنه مجرو ما لها وحن أدوك مغلا مالما وحن دوني إن انتلاقي قانون نين كانسان يالو وروح الله وحل إلى الأرضها كينا وح الله وحل إيسان دواقيد دور دانا يسوتك وح الله وحل إلى السودالية وقد أمروا به أن يكفروا بأليه وحل أمر إلا قال ودواقيد برلمان نذا إيادتك أتغير أوردان ودواقيد إيا إنت محكمة له وليكت إيا إنت الدولة لها جوازيسته كل قالوا ويان دواقيدة سيدا على قوة بشاريسته من كسو ورنتا كساحة في حدو قالوا وحادا قال كيف بدن مسلمين تقرب لوسي قالوا للوجبي ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه إنو هلاك سمو مك هلاك سمو يا سحات أساقو حجو جيدا إيا إنو حقا قاتو مك قالنا يا ساقو حقا أركيا intaan idin sheegay inay dawaaqii tahay ilaahay diintiisa caddayday ninkii raacaya caddaan ha u raaco ninkii diidayaana caddaan ha u diido waxay doonayaan buu allah yidhi inay dadka lumiyaan shayaadiintu wayna lumeen lumid fog inay dawaaqiid yihiin waxaa kuugu daliila waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allah wa ila arasuul ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda marka loo yidhaahdo u kaalaya wixii rabbi soo dejiyey oo loo yidhaahdo u kaalaya rasuulka waxaad arkaysaa munaafiqiintu waa jeesanayaan jeesasho dhab ah oy dhaqaaqayaan waxaad ku tidhaahdaa inta barlamaanada ku jirta wax alla wax mas-uuliyiin ah islaam ha sheegteen ama yay sheegeen diinta u kaalaya ku dheh qur-aanka aan qaadanna ku dheh kaalay aan isku xakunnee ku dheh waxay kugu yidhaahdiin arag hogaamiyayaalka siyaasiyiinta ah oo hogaamiya hay-adaha siyaasadda iyo kuwa u dagaalama xukuumooyinka iyo kuwa maanta jiro oo dhan dawaaqiiddaa weeyaan aan ilaahay oqon subxaana wa tacaala war rabbi ha laga cabsado war dadka islaamka u diinta alla qaata ilaahay daaquud waxaa lagu yaqaan qur'aanka u kaalay kaama yeelayo daaquudka kaloo daba yaallaa waxa weeye kaas ayuu shaqaala u yahay
ومنك الله يري وأن وحكم أو وحكم القرآن كإلهي لقى يا الدولة وسقى إلى دين تدونيسه لكن أسقى دونيين ونوراله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال لك كستا آيات القرآن وحكو حكم هكذا كجرا نين كستا بوليس أنت كأوهر يكوهر آيات القرآن هكذا كجرا نين كستا وسياسي وغلط ليلتي أيديه هكذا كجرا أو واحد أي حريان أما يقبنيان أما يوحكا قريان أنا آيات القرآن كوالين وفكافرين وقالوا إلى غير وقالوا ولا الله قال يصير أنكم إسلامي كرنو مساجد ما كبلوا هنا ديكونا ما إسلامي كرنو إلى ما ملعب كعبه سبحانه وتعالى وهو قال الله يري ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ذلك أن دين تعالى وحكوا كالصارم أو وحكوا كالهجين والظالمين أو هي الأركينين أحد والبرد لك كبر سبحانه وتعالى أحد كلا داغوت كلا وحوي وأفراد وأحد كعلم لغيب كشاغنية الله وهو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك ومن بين يديه ومن خلفه رصدا أيه الله كعلم له وحقيبك ربي ما يئدك له أبو مجرته غيبك الله بيسا قرنية سبحانه وتعالى أحد كيرا واحد إدونان قرنية وكوا واحد سحرة وكوا واحد فلان وكوا يرى أولياء أنه ملكوت كان دار عنا وكوا يرى همين كيبا واحد نوي مالين وكوا يرى الروحان بانا لسا دواقيد وهي إلهي وحوري هو دواقيد عالم الغيب فلا يدير على غيب أحد ودواقيد ودين لا ويال ودقنيال ودل دركات كان ارتتغيه وهينا لقرنين يانا لك قدين علماء يانا لك ادونك وحا اتشدي نين عالم او دين شيغانيا او داقي سيدان iyo nin madaxa oo saydaan oo ilaahay oqol yuhuud soo maamushay oo yuhuud adeegsanayso labada qolaad u tashatay niman magac culimo ku qaraabanaya oo la yiraahdo culamadii suu oo shayaadiin tahay waa culamadii reer banu israa'iil أحبار عالمين waxay doonaan bay xallilaan waxay doonaanna way xarimaan iyo madax aan ilaahay oqoon oo kulligood looga taliyo baytul aswad allahiin aqalka madow ee lacnada ku dhacday waa bis meel kale ma jirto rabbi laga boqo subxaanahu watacaala axadka sanaad waxa weeye waa qofka yidhi aniga ha lay caabudo ilaaha layga dhigto waxa anigu aan idhaahda keliya allah lagu caabudo آيات قرآنية حديثية حق الكذب ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه كذلك نجزي الظالمين بالله سبحانه وتعالى فذلك نجزيه جهنم ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم أحد كي هذا أودتك كمدأة مثلك أمر غاته لا عابده لا قدريه والله كسكيان أي جهنم وانكو أمال مرين يا والله dadka dhaalimiintana saasaan u amaalmarina nabadoonnadii miyaysan ahayn kuwa la caabudo ra'yiga uu meesha gooyo haddaad diiddo qabiilka waa lagaa saaraya naagta waa lagaa kaxaysanaya xoolaha boolis oo kaaga soo diraya waa lagaa xaraasaya berrita si ay dhii shaydaan oo isaga u shaqeeya ku soo xidhaysa aqalkaan magaalada ka deganta waa lagaa xaraashin hay war miyaysan ahayn ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn odayaasha qabaa'ilku ilaahyo la caabudo waayihiin ilaahyo la caabudo miyaysan ahayn gobornadoonnada gobollada miyaysan ilaahyo la caabudayn waa yihiin hay maxalbiisiyaalka ku dar miyaysan ilaahyo la caabudayn waa yihiin maxay yihiin oo kale fadalika waman yaqul minhum inii ilahu min duuni shafkau ku garaacaya haye waxau leeyahay naagta anaa kaa furanaya waxau leeyahay xoolaha anaa kaa dhacaya waxau leeyahay anaa sidaa yeelaya adduunka qoraxdana waa kaa qarinaya waa ilaah kaba xoog badan ilaahay ilaahay dadka kuma hindado qoraxdaan kaa qarinaya isagu waxau leeyahay qoraxda maydhaha saari maydid haye qoraxda maydhaha saari maydid ka waran war maxay yihiin ummadda noocaaso miyaysan dawaaqiid aan ilaahay aqoon ahayn waa yihiin xaqiiqadu sidaa weeye haddaba dadka islaamka ahow rabbigiina ka cabsada oo ummadda noocaasa iska qabta ha ka dhiganina dad mas-uuliyiina oo wax qaban kara ama wax loo sheegan karo waayo ma ahan waxay yihiin ma jiraan waa mujrimiin ilaahay ka durugtay subxaanahu wa tacaala waa inaan sidaa u garanaa
الله سبحانه وتعالى وحوي مركو نوغشي كينا يقفك إيمان كله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أهك الله رمي أو سديبة والرسول كيسا كطيلة هيا أو طاغوتك كقالوبة وح الله كسكي أنك أمر قاضا وح أي شيء أن يلين أحكاس وحو قبصري حرق لبك السعية وأن نضقلهين وكلمة التقوى وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله كاسا يوكو دقي مفتاحي جنة أيوها يستا وحو كجرا قالوا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون قال آيات كينا رميتي ودا من سوق ديبتي والله أرنيا أينك يا هويك نور دا جنة قالا أردا قرا حيسا تكاسا يوكو جرا وحو كميديهي قالوا الله يري أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وحو رب النوشة يددك وحقرانيا ودين تكون رغمة يددك كإن دهلا ليسنيه مسنا ما يسدوا يا وانسما يا وحيالا يا حق علاش أقلا إنما يتذكر أولو الألباب ددك عقلي قالك كلي يا وانا قاطا ددك ما أنت جوغا إن يستن عقلي لهين سيدا يبليين أيضا سالك قرانيا ددك عقلي قاليين مكوة سغيسي يقانا مكوة كدلاري يقانا سيدا وحلو جاجوسو سيدا وحلو خيانو سيدا قبائك غيسو ديرو مايا يأيهين إلهي سغال سفوكو شغل سغال تلمامود سغال كاتلمامود مكة من هدي لقاوايو عقل البرسي لقاوايو ياركو صور وينادي ودبق لسعويو كبي عياياتها وحتى ملان بل لقيتو تلماما إلهي بحينيو سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وكوا بلن كألا أوفينيا ووحي ألا واجب وغدق الفلينيا ووحي ألا كحرم الكتغيا ولله بلن كي تمرنا ببرينين والله وكي المحمود ساعدنا بلن كألا مبريان واجب كما الله يعان حرام لما ينادين حقا كما تغان رسول كما خلافان صلى الله عليه وسلم لما لا تلمامود بلو يقان معك لو دبي الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سجحت الماء الله قدري هاي وحلقوا يقامبوا الله يري وحي حريريان وحي الحريرية كويري الله وحويري قرابة حريرية وي حريريان مسلمين حريرية وي حريريان أحكام الدين الإسلام كأككلة تجيننا ولا حريري وكولا دغمة ويكولا دغمان وح الله وحي الله وناجية يري أي وناجيان أي ما حد ويا الله ويخشون ربهم ربي أيك أبصران وحل أديني إلا مدحرك ويكحسوران وحاود ويا الله ويخافون سوء الحساب حساب كدم بحرم حمديسة ويكبقان ووحنا أرلقوا قلو ولقوا عذابه وعوك النبي قال له قديدهم ما السمايان كويديدت كمان تجوغ أرنتا بلنك ألا أوفية ويد هوشك بلنكيسة أوفية هاي بلنك هبوريرينينا قال بلا بلنسان تاسي هاي أرنتية ومعني سيبون تميدة وقودا ما يسيب هاي تاسو لي واترين يا وحي على حريرية يري حريرية ومحير حريرية وحلا يري حريرية انت صور قدولي الدولة في الدسية ورقاها انا دان ليقهين وحب الله يمسينا اياه انت صور قدسو حريري ويل سوى لقلي ابا بورسو شيدان الدانين يوم يسعمات وهو قدسينا اياه هاي تاسا لقو بدي شيء حريركي وحي لا يقول درودان ربي ما لقى عبسنا جواسيس يبوليسا لقى عبسنا جاجا لقى عبسنا iyo cudurro ilaah laga cabsado إيه عمر الدنبا ما أنت لقى عبسنا مجالك ميلهلا نطول غالك كرا ميلهلا ميا حريق الواحد هو يعني هاي وكا جالك لقى عبسنا كاوي ما أنت كورا أمد ما أنت جوكته
وهو الله دوادق كلمان تكله ولحاله إليه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار. الله درتي أيي الصبران حرانتي كالصبران حقي كالصبران دبكي كالصبران ويدول غاطان صلاة علي وناجيان واتوسيان صلاة مدو كلان وسيدة يهدي مدو كلان ما هو سيجة ولا وجهله هيا وعن ربي سيئي وحكم بحيان حقي كم بحيان جيسا الله يكم بحيان قاكم القلان قبيلكم التعبيران تقالوا سعر سيدان هيا حقي كم بحيان مساكين يا مسلمين تا هيا كم بحيان هلان بيكم بحيان الدين الله يبحو غوتان ميكي حوغا هلان بي بحيان وكاسوا الدلالين وحو اسمه بينهم هذا جنادي قلي هيا لو أني لا إنسان هلان بي ما تبحيان تفتح بغلط كل هكا والله ولا تقرها لكن مسكين وحو غوتان هل كل ما بحي كران هيا ويا ويسوعنا ميلها لغو عروريو هل هالمليون بالغو بحيان نمك هل كان جوغانا ميتا تاقا يا بحيان العكسة سؤاليك ماهن وإلهي كبقى سبحانه وتعالى مروا ليسو شاقو مروا ليسو شاقو ودين لغاتو ما الدين تانا مرمو وإيه إلهي سبحانه وتعالى هل يستيقظ أمر كيسا وحو الله يري ومان مركا لغو سمايا وناك بيكو بدلان ويدرؤون بالحسنة سيئة أما هديتم بابان بي وناك العسيان أولئك لهم عقبى الدار إرمت وناك سندار سيدتك يا إسكالة وحق جنات عدن يدخلونها وبير لغوار أو جنة أو إجاليان بو ألا يري أيها المسلمون ميان من جنة ألا دوني سقال كاسفة إسكا دون دونا واجبك ألا سولية دينتها الله يئننا مسلمين سيئهيك حقو إننا حالان سيساقا تقاي حق درالة وربي الله قبله سبحانه وتعالى الإمام بالغوه ليا دكا وانسما يودينتو قليسو ودكا عقلي قالوا الله كشكي سبحانه وتعالى لكن دواقيت أن الله شغى كل هاي دينتيسا ما الله قيا ومرنا الله سبحانه وتعالى مركو يهودا كشكينا يوهويري سبحانه وتعالى بني آدم كما أنت جوغتي وهي أرك سماعون للكذب أكالون للسحت وهي آد ومقلي أجيهين أيضا ليس أجيهين بنتا وبيبسية تعاسي وغيين هل غاز مايو تعاسي وجدت كثيرا من الضوء ولما واسوق الله إلي ملحة يا وحكونا في درتين سبحانك يا إلهي سماعون للكذب أكالون للسحت وهي أريد أجيهين أي أريد بليهين حارانتا ربالا قادكا خمرلا دروغلا حولها سيدان نمالا إيا بغتي غودا أكالون بالسحت اسكرين ما انترن ماليك بحينا ما يقال أيه قبل كون نبيك بالله قارامة يا وحانا واسكرين يا وبيلهي كبقى سبحانه وتعالى وردتك بني آدم كأمان تجوغا يا رقمه لبدا السفو أو يهودا لغو شاقا ألو السفو بي مسلمين تو ربك كعب صدا أو إساقا بحا تغن كالنوع عاصر أو صلاة الدين إلهي وريان دواقيد النصر لأنك يانن دواقيد إلهي كدغنن دواقيد أنا قرنا وحيين ورداغوت سوما تقانا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والداغوت وردك اللي سيئي دينك وحكا مدأة وأهل كتابك أها وحي رميين سحرك يا داغوتك مسلمين تما أنت جوك أنا وحي رميسان تاي سحرك يا داغوتك الله واحد دينك الله كسوهني إلا بما مولا ويرهبان إن هذا الله قال ويرهبان إن وحلا بحيا ويرهبان ما حد دينك هذا اللي قد ديني سحرك يا بنت يا برابقان كان والله ربان ذاتك دواقيت سؤاليك مسلمين معهم يا ربي هلا قبلك سبحانه وتعالى وحنوسه قد بيا داقوت كلفت كيسة يعني تفسير كيسة واحد العالمية نمنك قال لا ولاية لا هاي أحكي المشركين تقوى فقد دين تولا حق الظاهر أو سكة سأقود إلى أو سلا أيالا أمسي أو أيوغا كبقنا اليوم أما يحولها كاتعان أما يأذيك كدلان أما يوحونك غسميان أحكي قال إسكو شبهة أو كد إلى أيوغا حفل له الحاضرة لبسكو لحرتا سلا يالا ينبو يالا
حق ظاهرك وكلمت لكن حق باطنك وكالنعبها السلام كوجعلي هاي ذكي توجعلي هاي حق قلبك أحد كالنوع عاسو فهو كافر مثلهم وقال لا لمده قال لا لمده واحد ككبقني oo is oranaya ama naftiya maal wax ku geystaan maxay kula tahay ninka naftiisa uga baqanay oo maalkiisa uga baqanay ee dama oo adduunya damcaya darteed gaalada ku raacay uga mid noqday si walba u dayday ninkaas maxuu kula yahay isaga waa ka sii daran yahay ahad iyar oo diina laa yashukku fi kufrihi ahad ka gaalnimadiisa kama sakinayo waxay gaaladu ku hayaan malahan oo gaar ah wax dhibaato oo u geysteen oo ka muuqanaya ma jiraan ama meesha yaalla laakiin waxuu iska jeclaysa yeelayan inuu yeelo xafladaha gaalada ninka jecel oo ka qayb gala maalin ay gaaladu faysaleeday hal ukun ninka ku bixiya ukun maxaa ka yar waa ukun fahuwa kaafirun mithlahum waa gaal ayagoo kalaa wey siyaad day iyo shan day iyo saydaan day iyo maalin day iyo balaayo day iyo islaamo day ku bixi xoolo khalaas ku bixi silin haddaad ku bixido silin dhexda ka duleela fa anta kaafirun min alkufaar gaalada lamida un baa tahay waxaad uga bedelan tahay ma jiraan dhegayso ilaahay daliilkiisa oo ku hadlayo walan tardaa canka alyahuuda wala annasaara xataa tattabica millatahum allah subxaanahu wa tacaala waxau ku yidhi nabigiisa yuhuudda iyo nasaaradu raalli kaa noqon maayaan ilaa aad diintooda raacdid ilaa aad raacdid haye ilaa aad ka raacdid xagga korka daahirka aad kala mid noqotid say yeelayaan yeel waxay cunayaan lacun wahaakada xataa tattabica millatahum qul ina alhudaa huda allah hanuunka runta waa hanuunka alle sidaa ku dheh ha yeelin ha ka amar qaadanin adoo ka baqanaya oo ay ku dhibayaan oo ay mushkilad kuu geysanayaan ay kula dagaalamayaan xoogaa haddaad ku raacido xoogaa yar yaa walain ittabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaaka min alcilmi ma laka min allah min bacdi ma jaaka min cilmi min allah walain ittabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaaka min cilmi haddaad raacdid baa la yidhi marka xaqu kuu yimid iyo cilmiga ka gadaal nimankaas yaa ood ayuga dabagetid ood ayuga raacdid fainaka idan min aldaalimiin waxaad noqonaysaa daalimiinta mid ka mid ah khayru khalqi illaah oo la garanayo sida ou yahay oo iyo sida ay gaaladu ku hayeen ayaa lagu yidhi in yar oo muwaafaqa haddaad ku samaysid wax yar haddaad ka yeeshid daalimiintaad ku jirtaa aayadda waxaa lagu yidhi qaarkeed maa laka min allahi min waliyin walaa waaq kuma sugna xagga alle wax ku ilaaliyo cadaabka alle kaa difaacaya macnaheeda maxaa loola jeedaa gaalada in yar kuma shabihi kartid in yar oo mutaabaca haddaad ku samaysid fa anta min aldaalimiin daalimiinta ayaad ka mid tahay axadka maanta jecel si alla sida ay reer galbeedku yeelaan inuu yeelo muxuu yahay nin alla ninka aaminsan mabda' dimuquraadiya ama shuuciya oo waxa ay samaynayaan inuu sameeyo jecel fahuwa min aldaalimiin fahuwa min almujrimiin fahuwa min alkaafiriin daalimiinta mujrimiinta gaalada ayuu ka mid yahay meel kale ayuu isu doonin waxba ha u malaynina muwaalada gaalada lagu sameeyana waxyaala tahay haye ummaddan adduunka joogta oo islaamka sheeganaysa faraha way ka badatay xoolahooda faraha way ka bateen maxay u gumaysanayaan laba milyan oo yuhuuda haye maxay ugu cayaarayaan way hooska dadka jooga iyo meelaha kale maxaa maalin mafmuud loogu cayaarayaa ummaddan yaa ka fara badan oo ka cilmi badan garta meesha balaayadu ka timi meeshay tahay ma waxay kula tahay gargaarka inay muslimiintu cayaar ku heleen waxay ku heleen ma garanaysaa waxuu alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum fainahu minhum dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nebigaba rumeeyeyo aabbayaalkiin iyo walaalihiin ha ka dhiganina nusara sir ha u sheeganina ha u qoslinina ha jeclaanina gaalnimada iyo iimaanka hadday gaalnimada jecel yihiin waa wixii kula dhashoo ku dhalay
أيا لغيري هذا الكفر أوجن جيران سودوين ونكسن يهيدين كهرين مركي والد كاغيهين وصاحب ما في الدنيا معروفة وحيكون ولا لدونك كسير قصل يوناجي محبنا ولقاه موسنين مرحنا قصة سيارندو تعالى مع مصيبة نوغود علي بالليل والله المصيبة اللي قبحين إلى ألو وإلهي ألو الله أغنصده إلهي تدكي سنة مسلمين ولا سنة الله أغنصده ويأمدوا كلام إيرمان والله عن لك لغون قال يا مسلمين تا وعلوك لقرنا يا ليس الدين مانتا إلا من رحم ربك مركز لي ما نصر له هلو كان نصر له هليا هي مدك لوحه إلهي مركز مسلمين تلقى هلا جهادك قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله والرسول وجهاد في سبيله فتربصوا تقع عذاب الله ويسودوا هاي حتى يأتي الله بأمره إلى أي أمر في سكين تكسوك أبيالكين ولا لهين ilmihiina haweenkiina iyo xoolaha baa musharka aad ku tihiin iyo daaraha waaweyn oo idin dhisan haddaad ka jeceshiin allah iyo rasuulkiisa iyo diintan in loo dagaalamo suga cadaaba loo degdegaa soo socdeen haye war ma waxay kula tahay gaariga xun oo la riixo waa ninka diinta alla darteed uga tegi karaa kallahu akbar waa ninkee haweenkeena iyo ilmaheena iyo diinta yaa qiimo badan haweenka iyo ilmaha xoolaheena iyo kitaabka qur-aanka xoolaha waa kuwa wax walba loo samaynayo waa kuwa xagga inta loo taga loolaya labayka ya kanad labayka loo hayo mar amriika labayka meeshii labayka alla loo oran jiray inta xaramka la tago labayka allahuma labayka laa shariika laka labayk bay taagneed saasa ay arrintahay hadda waxay taagantahay labayka laa labayka ilaa waa qoranaa ilaa reer galbeed ila algarbi لبوح كلا أهل يجيبين مجرى أذن كلا هيئة الأمم المتحدة هيدين كبحوا الأرض هيدين هيشيسيرو أراد هيدين كبحوا دبك هيدين كقاعدوا أو سياسيين حوالها ذلك على الله كسو ديك ذلك دمي وقبلها إنه مسلمات كقاوي هيدين كبحوا هيئة الأمم المتحدة لواترة إلهي هيدين كرديو هذا كبحوا واحد في جركان أحد كبحوا أو واحد كبحنا إلهي هو قرقارو marka ahad walba muslima waxa laga doonayaa wanaag dadka allah subhanahu wa ta'ala haday qaadadiina wanaaga rasuulku waa inkaaray marmar waxa yidku yiraahdeen maxaa umada waa inkaaraya rasuulku waxa uu allahumma alayka almala'u min quraysh ilaahu jama'ada quraysh ayaan ku ogahay inta nabigu inkaaray bada baa dhigay gabadha jirka googo'ay in alla inta siyaasiyiinta oo madaxda ah iyo inta alla qabaayilka isku dirta iyo wax alla waxa dimuqraadiyo wata ilaahu haddii hanuun la doonto soo hanuuni haddana hanuun la doonin ilaahu dhegta dhiigga u dar oo saacad degdeg adduunka ka qabo ila ilaahay waa ikara subxaana wa tacaala marka ahad walba muslima rabbiga ha ka boqo subxaana wa tacaala oo xaqa dhab ha u qaato marka nimankaa yuhuudda iyo nasaarada u adeegaya aan garanay inay cadow yihiin cadow ilaah wax alla waxay wataan aad raacdinna wanaag kama yeelayaan maxay dhihi jireen ma taqaanaa waddamada islaamka lagu sheegay ee diinta la diriira oo gabdhaha xijaaban jeelal ka dhigaa waxay oran jireen ma iska dhigaysaa marada aan ku sii daaye macnaheedu waa maxay waan gaalownay ma nala gaaloobaysaa jawaasiistaa dhihi jirtay haye waan gaalownay ma nala gaaloobaysaa haye marada ma iska dhigaysaa aan saa yeelne ma noo sheegi kartaa wixii waxaan kuu sheegay aan ku sii dayne hooyadaa iyo aabbaha salaada ma kaa jebiyeen aan ku sii dayne macnaha diin ma lihid annagu diin ma haysano waxba ma dhawrno wax alla waxay ayagu rag adig kuu soo saarayaan nabigaa la necab yahay macnaha sunnada nabigay dadku jecel yihiin dadka aan dukana diin ma lahan bay dhaheen annaguna ma dukane aan dhahno nabigaiyo diideen waa saas macno aabbahay baa waysada iga jabiyey iyo hooyaday markay kuleeyihin mataa waxa loola jeedo waalidkeenna caasiyaal baan ku noqonay waalidka baariyaal ha loo noqday dadkaanu yidhahdeen aan kumaano aana ka soo galno xagga waalidkeed waalidka kuma ficin ha la yidhahdo khalaas ilaa aan la kulmay maalin maalmaha ka mid a nin ka socda qolo la yidhaha xadratu lawliyaa khatar ah waa weyn balaayo ah oo ku xidhan ninka ugu sarreeya dawaaqiida lagana yaabo in argagixisada la shaqeeyaan waxau qaqabanayey hablo 15 jir ah oo xijaaban maxaa kugu xambaaray ma iska daydo si dhiba kuwa urubaya juba jooga maa laga qabto noocaas oo kale
markaasuu waxau yidhi waxa aad sheegaysa iyo masiixiyadda iyo kuwaana nooga daran oo weli aabihi isku diri karo diin bay sheegayaan laakiin kuwaas waa iska tumanayaan qarankay wax soo gelinayaan qarankii alla waa dundumiye quruxna alla uma yeelin qaadirkuna dib uma soo celiyo maba soo noqonaye ilahay ha laga boqo subxaana wa tacaala dad ilaahay hala noqdo waa haddii run la rabo haddii kale nin walba hore laa sameeyo allah subxaana wa tacaala waxau nagu odhanayaa isagoo nooga sheekaynaya nimankaa gaalada qofka raaca warkooda oo raaca walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istadaacuu waman yartajid minkum can diini fayamud wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaalhum fi dunya waalaakhira wa ulaa'ika asxaabu nnar hum fiiha khaaliduun alla wuxuu caddeeyey gaaladu inay nala dirirayaan ilaahay diinta naga saaraan hadday karaan meeshaa dhibka yaa la galo marka intuu leegyahay waxa allah caddeeyey axadka gaaladu la dirirto oo ay dilaan oy xoolaha ka dhacaan oo diintiisa ka baxa ee isagoo diinta ka baxay ku dhinta camalkiisii in la buriyey adduun iyo aakhirana musiibad ku dhacday dadka naarta ku waarayana oo ku jiro ninkan waman yartajid minkum can diini laleeyahay ogaw nimankaana la soo diriray say u diidayeen oy u xirayeen oy u dhibayeen ayuu yidhi diintan iga dhig xagga sidaa markau yeelay hadduu ku dhinto waa murtad waxauna ku jiraa bu alla yidhi asxaabu nnaar hum fiiha khaaliduun dadka naarta ku waaraya maxay kula tahay silin aad heshid iyo dagaha lagu siiyo darteed ninka u ridoobo diinta uga baxay haye kii la dilay oo dhib loo geystay ayaa sidaa la yidhi ninka u ridoobay hoogaa lacaga ha lagu siiyo ninka u ridoobay madaxdu ha ku oqoonsato ninka u ridoobay meel heble ha lagu geeyo maxay kula tahay isaga ninkaas xaggoo joogaa bay kula tahay maxaad u malay kartaa axadka muslimka aho haye maanta maxaa loo ridoobayaa maxaa loogu biirayaa duwalka oo loo hoos ordayaa oo 24 saa loogu sidaa boorsooyinka gaalada ma taqaanaa waa xoolaha la helo nolol dhoolla cadays wanaajin haydin wanaajiyeen ilaa waxbaa gacantooda ku jira wargaal muxuu wanaajin karaa muxuusa qaban karaa mase ogtahay inay yihiin akasu naas araadil aan waxay hayaan la arag caalamkaana waxa uu ku dhisan yahay ay yihiin afraadda muslimiinta ee caalamka ku noolo laga yaabo inay alla caabudayaan subxaana wa tacaala wargaalada maxay og tahay waa araadil waxay yihiin aan la garanayn nin alla ninka gaalada qadariyo ammaano ayagoo ka mid yahay lama qadari karo ma la ammaani karo sharaf iyo qiimo looma yeeli karo waxaana caddaynaya allah hadalka uu yidhi laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliya'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shayin waman yafcal dalik bal u fiirso axadka sidaa sameeya oo adinka idinka mida muslimiinow falaysa min allahi fii shay alla agtiisa wax uga suganya ma jiraan nimankaa ha ka dhiganina nusara ha jeclaanina saaxiibba ha ka dhiganina ha soo dhawaynina qofka sameeya alla agtiisa in yaroo khayra kuma lahan ilaa an tattaquu minhu tuqaata axadka in la dilo oo naftiisa oo waaye ka cabsada ee afka gaalnimo uga dhawaaqa waa qolada alla ka sheekeeye u yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu madmu'inun biliimaan axadka la qasbay oo meesha la gaarsiiyey laakiin qalbigiisa uu diinta ku degan yahay oo markay ka dhaqaaqaan hore ka fulinaya oon weligood waxba ka yeelay laakiin marka afka uga dhawaaqay warkiinaa jira ninka noocaasaa laga istisnooday inta kale waa nala dhaxaya iyo waa nala xidhaya iyo waa nala garaacaya iyo dhibaa naloo geysanaya iyo waa nala musaafirinaya iyo dalkaa naloo diidin iyo warqadaha nala ka qaadin iyo waxaas oo dhan waa shakaa waxba ka jirin diintaas ilay hooga teginin arrimaha waakrijnaa min bayni saalimiin allah inuu ayaga istuso oy ayagu isbaabi'iyaan muslimiintana ay ka mashhuuraan taasoo ma alla weydiisanay dadka islaamka u rabbigiina ka cabsada garta cadowgiina waxa ay yihiin waxau allah yidhi subxaana wa tacaala asagoo nooga sheekaynaya inaan gaaladaa weli laga dhigan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ha ka dhiganina awliya ninka doorta ninka wax ku aaminta ninka la saaxiiba ninka dadka muslimiinta eedahooda u sheega ninka wax alla waxu isagu wanaag leeya ayaga u dhiibta oo sidaa uga dambeeya ayagoo ka mid yahay waa ka mid
كمدوية وحينبو هيتان أود موياني قالوا أكتين وحبا كما أهان الله وحا أيوغا وتأيي قال منا ربك أود سرنا هكسو سارة وهكسو سارة جل قال إلا وايقان الله سبحانه وتعالى هكذا قالنا دتك أهل هكذا قالنا قرارو ما أهل منا نقنيان وانا إلى الأغاتان إلى كوك الله عرض على يكون عرابان وطور رسولك حديث صحيح كوي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان وهأمدون آخر الزمان دلمك على إلى الصردة وحلو يقلنا الصردة أعراب ددأة أو وحي أبيه العرق أو الله بري أو أدرم بالليل إلي سرعوا قالان الحجية ددك قال الله ساسي وقدوا أنهم عليهم يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله عرض الله يكون عرابا كونك لهان إن الله إنت قال له عليك أو مسلمين تدبكوا لك سغيرا وتذكر بريت وعي كجرا متقان واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ذكي نفس الدولة الدين الآن تكون المية هي هوينكو مال بالله بصورة كل من نكا سو ملحة هي إذا كيسا مال بالله ويكينيا نكا سو مال مسؤولك انت أو درسل يا سيغا مال بالله ويكينيا ما قال ما حالي لكيني من الدد بالله إسلام كو شيء يو هيا ما حيا لي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو عجيه المرء مع من أحب قفك أو جعليه أيو مئجي سنقول يا مالي تقيامة دك أبو أبجعي يا نصر عنيسا ورقانا لا أن كدقني أولياء أو وحكسنا كدر سمي ساسي ألوئيه ساسينا النودي بيان إخواني أنك وانتونه وربي كبغنا سبحانه وتعالى وحن دونا يا عبدي الله يلهدو إن أنتريو أريمها متكملة هداد قال الأول أكتو أدولي كدقتي marka waxaan inta aanantii sheegi doona dhowr aayadood axad walba marka ha ogaado waxyaalo badan oon isaga waxba lahayn inuu diinta uga baxayo oo ilaahay uga fogaanayo subxaana wa tacaala gaaladana waxuu rabbi yidhi cadaawada ay noo qabaan markuu ka sheekaynayay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum ma jecla inta gaalada ah ama ha noqdeen yahuud iyo nasaaro أما هنقل المشركين أما هنقل القرى وعبادة الأوثان إن يرى خيرا إنه الله يديك ويدجيه إن يرى خيرا ما جعلها إن يرى خيرا إنما كرج عليهم تاد اللي ما هاجيها وانت هذا هو آمنتي تاد نرش هذا هو آمنتي تاد أتلي على إجابة مسؤولة على حبيب كيجا على وحوى البيض منايا تاد كتير وروح الآمري كريم جاوده جاوده يكداوينيا وأن أقنعي أحد كسو مسلمة ودين تعالى كوة أكثر مركز وقالان وقالوا داويتك تعبطنا يقول إفلان إمي سنين بي مرايكن كديرين وكتك أفغانستان وداول له جاي وقالين جهاد كيلي كي يمدان إربطنا يالله قد إفلان وهذا ماسك ولا لك خارجي البحر مائيو فرمر مائيو حقوق بني آذان النقانا إيو شاكل أسوا شاكبر لي وحالقوا قلدادك كده وانت ويومين العرق هاي وسعى صايرا جعلنا أيضا هدانا جعلين وانا أيضا كمينهين وهو اللي يرسوها سبحانه وتعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون وهو الله يري وحي عرضكم سيسين دككا وينار تأغوا عليا وامحي إنبلا أو قالوا إنبلا وأيوبا كملا أيها قالوا ولي كده ترى كثيرا منهم تكائن بنا وكملا يهودي النصارى في شيء يقوى إسلام سيغنيا هاي معي سمعينيا يتولون الذين كفروا وحاول إلا قد اكتن وحاول بالله شاكتن وحاول بالله درس أيوغا لبئس ما قدم الله ما فسهم جروا وحي أرنتو صحيح وهو الله قرآن ككل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لو أي أهان هايين كوار ميسان الله إيا النبي إيا وحا النبي لو سادجي قال أولياء كما تكتين ولو كانوا يؤمنون بالله دنيا نغش ربين إيمان عليها لو كانوا يؤمنون بالله لو أي مؤمنين أهان هايين لو أي دين أهان هايين أولياء كما تكتين ما كدكتين إن الله إنت عن صلاة الدكان أحكا ولي كدكتين تكاسو بجراو فكان صلاة على الدكان وصلاة على كتغي
waxaan maqlaysaa maanta cajaa'ibta jirta ka mid a oo lagu hayaa dadkii diinta loo malaynayey waxay ku leeyihiin jihaad baanu gelaynaa sirteennan u dhiibanaynaa yaa loo dhiibanayaa nin aan salaada dukan nin diinta ilaahay dimuqraadiya ka hormarinaya maya jihaadaan ku jirna jihaad war nin naagtiisii caariya tahay oo salaaddii alla ilaali waayey oo wax cunaya ribo ay yihiin oo inuu ka taga aan rabin oo 24 saa gaalada ammaanteeda wada goorma u jihaad galay goorma usa noqday nin xil loo dhiibto goormaa sida weli ka dhigatay oo sirtaada u dhiibatay allaha laga boqo subxaana wa tacaala caalamkan gaalaa ka tarisa maaha wax kale ummadda annagu aan luqadeeda ku hadlayno waxaa baabi'inaya 3 sanam 3 sanam 3 saldhig bay kala leeyihiin 3 saldhig bay kala leeyihiin saldhig walba sanamka yaalana 200 sanam oo yar yaraa hoos timaada saldhigga ugu horeeya ugu weyn xamar buu ku yaallaa midka labaad kismaayo ku yaallaa kan saddexaadna wuxuu ku yaallaa hargeysa 3 sanam waxaa hoos yimaada mid walba boqolaal yar yar oo asnaam ah allah waxau ku mahadsan yahay asnaamtiibaa maalmo dhawood is aragto oo kuwa yaryaray baa islaayey oo kan weyn hoos joogay subxaana wa tacaala allah wuu ku mahadsan yahay kuwa yaryarkaay baa ku heshiin waaye waxay meesha ku samaynayeen waa asnaam oo wallahi uma wallahi waa asnaam oo ninka dadka noocaasa aaminsan waxau ku jiraa walaw kaanuu yu'minuuna biاllahi waannabiyi wamaa unsila ilayh ma اtakaduuhum awliyaa asnaamtaa awliya kama dhigteen waa asnaam aan saki ku jirin oo dadka u xuguntama oo jecel aysan diin iyo iimaan lahayn waxayna ku jiraan allah subxaanahu wa tacaala dadkau yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun waxa ay dalbayaan ma taqaan oo ilaahay istifaamta geliyey waa xukma aljaahiliya waa qawmiya waa qabaliya waa wadaniya saydaaniya waa dimuqraadiya shuuciya iyo ilhaadiya o dhan saas weeyaan waxaasay dalbayaan waa asnaam in alla inta hoos tagta inta xoolaha ku bixisa inta aaminsana u sacyida inta boorsooyinka u dadaamisa talyaaniga iyo maraykanka lacagta uga soo qaada waa kuwa asnaamta u sujooda oo qurayshtii carbeed oo kale ah laa shaka fiih waa qurayshtii asnaam carabta waa waxay ahaan jirtay manaate iyo laate iyo xuja kacbada waxaa ku jirtay 360 sanam kuwaasana odayaashii waaweynaa bay ahaayeen laa shaka arrintu sidaa weeye yaa la dhihi waa sidaa iyo xaggay ka timid iyo ma jira waxaas haddaa diin leedahay isaga taga arrimaha ayada ah waayo allah subxaanahu wa tacaala wou diiday qadiyadaha noocaana rasuulka allana waatau ku magacaabay dadka ku socaya jaahiliya oo dacwa jaahiliya yaa qawmi yaa fulan ku soconaya waa fa inahum min jusaa'i jahannam jahannamo xaabada lagu shidayo weeye maxaa yeelay allah waxau idiin bixiya muslimiin cibaad allah ayuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nuucaa asnaam weeye saraakiisha hoos timaada oo dhan waxay ka soo baxeen madrasa shaydaaniya dadka ka soo baxay madrasada la garanayo oo lagu bartay diin la-aanta iyo xumaanta ayagoon la dhammayn ammaan iyo amni nabad iyo khayr iyo diin weliga lama gaarayo sidaa la socda halkaa bay taagtaagan yihiin qaarkood 24 sano waxay ka fakerayeen si islaamka loo xerab goyn lahaa ayagoo meelay seexdaan la ayagoo waxay shalay u ordi jireen waayey weli waxay ka fakerayeen si islaamka loo dhameeya dadka noocaasaa doonaysa inay wax idiin wadaan oo ka dhiganaysaa dad khayr leh rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala aan noqono dad ilaahay hana ogaadeen dadka gaalada alla inuu yidhi yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allah ilaa an yutima nuura waxay doonayaan muslimiintu inay nuurka alle afkooda ku burburiyaan alla waa diiday alla nuurkiisa u taam yeelayaa gaaladuna wax ay ka qaadi karaan ma lahan xaqiiqadu saas weeye marka ikhwaani rabbi ha laga boqo oo diinta aan ilaalino dad alla diintiisa ku dhaqman aan noqono allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy markuu asnaamtaa ka sheekaynayo iyo waxa wata walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum الnaar wamaa lakum min duuni illahi min awliyaa uma laa tunsaruun ha u iiranina hana u weecanina xaggooda kuwa daalimiinta ah oo haddaad u leexataan ood jeclaataan ood soo dhawaydaan cadaabka ilaahay idin gubo alla sukadiisana wax idin gargaaraa ma jiraan xaqiiqadu saas weeye wax idin gargaaraya oo wax idin qabanaya ma lahan bu alla yidhi subxaana wa tacaala marka walaalayaal aan isaga fogaano dadka noocaasa oo rabbi ka baqano subxaana wa tacaala
waxaan doonayaa mawduuca idin gabagabeeyo si aan hadalku ila durjin waxaa akrinayaa nuqaadkaas oo mid kamida qofka laga helaa oo nimankaa raacay mushrikiintaas marada ugu horaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau xadiis saxiixa ku yidhi alrajulu calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil axadku qofka uu saaxiibka leeyahay diintiisa u leeyahay qofkaa saaxiibka ka dhiganaysa ka fiirso laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa yakul dacaamaka ilaa sagiir allah aad bau u diiday muwaalaat alkufaar gaalada muwaalaadkeeda jacaylkeeda soo dhawaynteeda alla aad ba u diiday waxaana ogaanaysaa alrajulu yuxibu alqawma fahuwa faxushira macahum axadka qola jecel ayugaa lala soo kulminayaa uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum halkaasaa la iskula kulminayaa wax alla wixii kufri iyo xumaan ku heshiiyey waa la isla kulminayaa dadka xaaraanta ku wada socda waa la isla kulminayaa waxau alla yidhi in arrinku saa yahay waida anufuusu zuwijat nufuusa waa la xariiri say isu leedaa laysu raacsiinayaa xaqiiqadu saas weeye marka nuqaadka aan soo qaadanayo waxa weeye arrinta ugu horraysaa waxa weeyaan gaalada inaad weli uga dhigatid tawalli caam ah welinimo caam ah midda caamkaa waxa weeye si caam ah ayaad gaalada xubbi iyo wanaag guud ahaan baad u haysaa inay ku maamulaan inay igu wax qabtaan si caam ah arrintaas ayadaa caam ahaan wax alla wixii dimuqraadiya watoo dhan inaad sidaa ku soo dhawaydo ood ku jeclaatid khalaas fa anta minhum ayugoon baad ka mid tahay waman yatawallahu minkum fa inahu minhum taasu waa nuqdo nuqdada labaad waxa weeye almawaddata waalmaxabbati alkhaasa jacayl iyo maxabba khaas ah ood gurub gaara jeceshahay khaas horay gaarku ugu tahay mawadda maxabba niyad baad u haysaa si gaara qayb ka mid a haye qayb ka mid a nin baa waxau kugu oranayaa meel kaleba kuma noolaan kara ila mehelo mooyaane